daawadayaal galab wanaagsan oo wacan galabta halkan waxaynu ku duubaynaa barnaamijkeennii murtidhaab toddobaadkiiba hal mar ka daawataan TV-ga caalamiga ee Horyaal 24 galabta waxaa barnaamijka marti iigu ah Cabdisamed Cabdilaahi Jaamac iyo sidoo kale Cabdirasaaq Cumar Cadeysay Cabdisamed galab wanaagsan horta bismillaah galab wanaagsan oo wacan sidoo kale adigana galab wanaagsan si wada jira barnaamijka ugu soo dhawaada aad baa mahadsantahay walaal galab lamida haddaan ku hormaro Cabdisamed oo badanaa ay reer Laascaanood ilka casoo yaqaanaan abwaan miyaa tahay mise murti ururiye maansooyinka miyaa tirisaa bal dadka isku sharax bismillaah haddaan magacayga ku bilaabo magacaygu waa Cabdisamed Cabdilaahi Jaamac abwaan ilka case horta anigu haddaan aniga nafsadeyda anigu saan isu aaminsanahay isay dadku ay aaminsan yihiin aan ka kala hadlo anigu waxaan isu aaminsanahay inaan abwaanahay laakiin hal abuurahay laakiin dadku yacni waxay inta badan dhahaan abwaan marka abwaan ma aha aniga abwaan ma gaarin weli hal abuur baan ahay marka kullu qofkii dee abwaan ugu dhahaya waa caadi dhib ma arko laakiin anigu hal abuurnimo inaan ahay uma isu haystaa haddaan Cabdisamed oo kugu soo noqdo hal abuur baad leedahay maansooyin baad qaadaa gabayo baad qaadaa adigu aad iska leedahay oo aad tirisaa bulshada reer Laascaanood intii sanad labadii sano u dambeeyay wad ka soo dhex muuqatay aad bay ku yaqaanaan marka ma waxa la oran karaa ninkani maansooyin ku sameeyaa waa hal abuur laakiin wali abwaan mu gaadhin sameys leedahay waqtiyadan kamida ayaa lagu oran doonaa abwaanilka case oo kale إن شاء الله كل وين قارية لكن هذا طبعا عشرة ولي هالأمور في جداي. أد بعض ما هتصنت هاي دين عايقة كلا واحد فرديا عبدالرزاق عمر عديسي والسنة لو يقانو عديسي إن عديسي هي صبدا أو تعايلة ما أنت تمر إنه حاجة ين برامج كسلف غيرني إن حدنا وحكوت شرتي إن قبيو عاد معان بالكسر دو أدونا ما أبوان باتهاي مسا مسوين كون باتسميسا مرتدى ضروري ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم ورتي مركو وارسا إلهي بمهاجس كلا سبحانه وتعالى الحمد لله على كل حال أنت كبعدي ومحسنتها يا حمد قرن دماننا وان سلامة يا أدقي أبوانك كلبا دمان ضدك كلا شوقا ميشا أنت كبعدي أنا قهرتي أبوان ماهي لكن سيدا أقولك على شيء هالأبور بانهاي هالأبور نمضى إيو أبوان نمضى نحقا ويكلا ديريتشا سريسا أبوان نمضى وقف ويا أرقا وحبدن أوق أبوانا وعرية buu noqon karaa marka hal abuurnimadaasaan anu maxaan ku raadayay si taakiidinaya in loo ku yeero maadaama wali aanu dhalinyaranahay cusubnahay laakiin se hadii abwan lagu dhahona waa wax dhiba ma jirto marka waa sida walaal aad baad u mahadsantihiin daawadayaal barnaamijkan oo toddobaad walba ay nidaadihin doonaan amaan nidaadihin doona anigoo Xamdi Cabdilaahi Xamdi Qarana waxa isbuuc walba igala qayb qaadan doona Cabdisamed Cabdilaahi Jaamac iyo sidoo kale Cabdirasaaq Cumar Cadeysay barnaamijkan oo toddobaad walba aad daawan doontaan waxaynu u gudbi doonaa dhankii su'aalaha barnaamijkeeni murti dhaab ayaynu wali bartamaha kaga jirnaa barnaamijka murti dhaab haddaan idin faahfaahiyo waxaan ku soo casuumnaa qof kasta oo hal abuur leh oo ku nool magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool adaynu su'aalaheeni bilowno waxaan ka bilaabayaa Cabdirasaaq Cumar Cadeysay oo loo yaqaano abwaan Cadeysay su'aashayda haddaan ku weydiiyo waxaad ii tirisay hees aad macaan oo alla ka cabsi la yiraahdo gabay aad macaan oo alla ka cabsi la yiraahdo gabaygaas waxyaabo badan buu ka hadlayaa diinteena islaamka oo aad tiro badan yacni ma soo koobi karo bal waxaad sukay raacisaa gabaygaas wixii kugu kalifay sababtaad u sameysay iyo waxyaabihii kugu dhaliyay inaad gabay noocan oo kala iyagoo abwaaniin badan ay jiraan waxyaabo badan ay diinta ka hadleen haddana gabaygan waxa moodaa inuu saameyn ku leeyahay waqtigan la taagan yahay kusoo dhaw Cabdirasaaq بسم الله الرحمن الرحيم هرتي حمد قرن ولا الآد بدو ما هسنتهاي قبل كننا سان هرب كوجي شيء وحاليا مجلس على كعبسي وحنا كنت تشومي حديث رسولك صلى الله عليه وسلم وليه هي حديث كاس أو بانكسو كوبي أو كسو أوريي أو عن مركي عن حديث كان مغلي بانش على استئنا عن محن كرا عن قبل كسمايو سي محن كرا بالشدو دي بالشدي أفقي سوقات ما دام إنه هاي وسنوقع بحين حدنا قف كسالة بدي أوسي هيو حديث كاسي ولو بحاجة ضمن عن حديثه كقدر يرجلين صلاة أو كلا أو وحوجو كم ذا حيالها واجبات كوجو وين يا مرنا عن دعين فضائل أو فربنا له
marka xagga dambe waxaan kaga sheegayaa oo kale fadliga salaadu ay leedahay sababtoo ah salaadu waxay leedahay fadaa'il aad u fara badan aan laga soo tirkoobi karin marka hal mid oo ka mid ah ayaan soo qaadanayaa oo ah salaadu inay tahay waxa ugu horeeya ee maalinta qiyaame qofka laga xisaabinayo haddii salaadu ay ku hagaagto oo ku wanaagsanaato wax walba ay ku hagaagayaan sida rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka xadiiska haddaan dib ugu noqdo xadiisku waxa uu ahaa rasuulka su'aal weydiiyay sallallahu alayhi wasallam waxa lagu yiri waxaad noo sheegtay rasuulka ilaahay wax ugu badan dadku ay jannada ku galaan marka xadiis sir oo kooban buu ugu sheegay wuxuu yiri taqwallahi wa husnul khuluq waxa ugu fara badan jannada lagu galo waxa weeyaan alla ka cabsi iyo dhaqan wanaag marka labadaasaan ku soo qaatay markii hore gabayga xagga dambena fadaayish salaad oo kale oo iyaduna kamid ah waxyaalaha ilaahay laga cabsanay oo loo sameeyay waan kaga dari doonaa mana badna wax yar oo aad u kooban weeyaan okay aad baad u mahadsantahay abwaan cadaysay adoo noo bilaabaya gabaygaas ama maansada aadka u quruxda badan gabaygaas ama maansadaas waxay ku bilaabmaysaa sidatan أكثر شيء يادمه أرورامبا الباب ذا جنة يو هالكيون كبينيسي الله كعب سيقاد لا سمتيوت كنا أدومودو أخلاق وناق وييو إذا بتديني دي أسترنا انتو حيكين إسايتي وعن آخرنا وحلقو خدمة وأعمال خير كواد كادا إبار لذا وميكليجي كواد كادا إبار لذا وميكليجي ومدي سبضاني يودمان ومياه جوغا isaga arsaaq dood aqoray gaaliyo islaami umana bayeelo xaq buugu adeegaye alaasay jarmaadiyo aroor aadis galabtiya kuwaadikow salaada iftiin iyo leh iimaani aakhira markiya tegto surka la fuufo oo allah xaasib yahay dildadkiisoo dhan iyada ugu horayso awala eegista xisaabta haddii ay ansaxanto iyadu ku aloosnaanto arrintaadu way saxantaho waad aflahaysaa intaasuu gabaygu ku egyahay waa gabay aad u koobana yar aad baad u mahadsantahay abwaan cadaysay aad baad u mahadsantahay wuxuu ahaa gabay aad u qiiro badan waxaan u malaynayaa wacyiga hadda taagan ayuu ka hadlayaa aad baan kaaga mahad celinayaa sidoo kale waxaa garabkayga jooga ama barnaamijka qaybka ahaa cabdisamed cabdilaahi jaamac isagoo haya maansooyin ama gabayo aad u tiro badan okay cabdisamed waxaa jirta maanso la yidhaahdo dhaqan dooris oo aad tirisay maansadaas bal nooga waran wixii kugu dhaliyey inaad maansadan samayso ama aad bulshada usoo gudbiso galabta maansadan horta waxay u dhaliyey maansadan dhaqan dooris waa nin reer miyiah iyo nin reer migaah baa isla hadlaya isku maagaya marka ninka reer miyiga ahina wuxuu maagayaa ninka reer miyiga ahina wuxuu maagayaa gabdhaha reer magaalka wuxuuna ammaanayaa gabdhihiisa reer miyiga ninka reer magaalka wuxuu amaagayaa gabdhaha reer baadiyaha wuxuuna ammaananayaa gabdhihiisa reer magaalka marka waxaa igu keentay inaan keeno laba nin saaxiibanahay oo dhalinyara nin baadiye uu baadi ka yimi oo gabdhaha baadiyaha ammaanayay iyo nin gabdhaha magaalada ammaanayay lahaa waxaan yaa u dhawaan karayo yaa guursan karayo oo marka kana uu lahaa gabdhaha magaalada fiican oo marka adigu halkan maansadoon baa sheegaysaa waxay ku soo koobnaato maansadoon waxay ka bilaabanaysaa sida tan marka ninka waxaa horeynaya ninka reer magaalka ninka reer miyiga baa horeynaya markaas wuxuu caayayaa gabdhaha reer magaalka wuxuuna eedaynayaa wuxuu maagaya gabdhaha reer magaalka wuxuuna ammaananayaa gabdhihiisa reer miyiga marka wuxuu leeyahay ninka reer miyiga hadlaya gabdhahan magaalada gelin hore cadaanka galabtii aroortii gudigood xijaamini goortay fiid ahaatana kaabisaad bilowdan gidaaraad ku dhuuqdaan yaad garab dhigaysaan gabdhahan miyiga jira geeliya idaha dhaqa gurigana habayn karaa goortay ahaatee guurkeeda gaadhana gelinyadoon xumaan gelin gacan maran ma doontae gurigooda laga dayo guyaal nimanka weylmey guugalkay u gelaysaa isay wada gurxamayaan iyadaanba guurdhicin gabadhii qarribayaan goortaad ogaataan iyadoo gumaar weyn aad moodo geel rimay
guuraada loostaano gabal loo baryayaa alla buu yidhi maxaad gabadh hadlayseen ood garac habayseen waad aragtay inta badan gabadh baa yani marka hore sheegsanay uur loo yeelaa kabacdina ku qaabo oo isu guursaa ilmihii gabadhii horteeda waa la haleeyay marka hore mustaqbalka waa lagu ciyaar sharafta waa lagu ciyaaray laakiin garaci waa la habeeyay ilmo xaal laga dhigay wuxuu alla maxaad garac habayseen ood gabadh hadlayseen marka ninkii reer magaalka baa isna hadlaya oo wuxuu ka soo galayaa wuxuu yiri gabdhahan miyiga jira guddigood rag weeyaan guurkoodu waa halis goortaan wuxuu yiri gabdhahan miyiga jira guddigood rag weeyaan guurkoodu waa halis goortaan isri qabo gabadhii salaan yiri gacanteedu waa dhagax geedu miyay ku socotaa marka meelu eeda ka qabto gabdhaha miyiga waa arto xoolay lisandar bay guraan gacmahoodu way adag yihiin marka saaxiibkeen eeda wuxuu ka bilaabay gacanteedu alka geedu miyay ku socotaa yani gabdhihi gacmaha miyay ku socdaan uu sii wataa wuxuu yiri gabdhahan miyiga jira gal hore socdaalka guuraha habeen jira goormaad is aragtaan mise waa gartiino aan idiin garaabe gabaad baa la dayatan sida geel oo kalaad galni hore isfuushaan marka waa ninkii reer miyiga ahaa xanaaqi markii la caayay gabdhihiisii oo halka loo dhacay in kastaba xagga sharafta ku dambeeyay rag reer miyiga marka ninkii reer miyiga hadib uu soo noqday xaggii guurka uu soo dhacay wuxuu mar haddaadan gabadhii gurigooda geel dhigin mar haddaadan gabadhii gurigooda geel dhigin goobtii arooskana gabadhadu ciyaarayn gabdhuhuna mashxaradayn ilaa gaafka waa beri goobo loo isku heesayn gafaan ugu samayseen guurkiina waa maxay marka kii reer magaal baa isna hadlay wuxuu yiri mar haddaadan gabadhii gurigooda geynayn ku ay lacag ku jaam tahay gidigood rag iyo dumar guri lagu xaraynayn gacmo la iswareejiyo gidigood la jaasayn goortay ahaatay ay gabagaboodana gabdhihii habaysnaa gaariyaa la saarayno gurigooda loo dhigin waa artay gabdhaheena moogtahay magaalada markay yimaadaan aroosyada gaariyaa baa la saaray gabadhii saaxiibadeeda baa lageeyaa idinkana gartiin tahay gabdhihii martida yini gabadhnadu eryaanoo geedaha dulmariyaan weligaa xumay aroos ribaadiya xamdi ma tagta oo markay aroos ku dhammaado ninba wuxuu eryadaa gabadh meeshuu ku arko laakiin waxaad moodaa in dhaqankii hore ay haystaan oo si sharaf leh gabdhaha laakiin wala baxa laakiin inta dee xun oo dhan way baacsadaan marka labada nin intaasay maraysay way sii socotaa marka inkastoo waqtigu nuu yaryahay intaasaan kusoo koobayaa aad baad umahadsan tahay abwaanilka case sidoo kale waxaan barnaamijka mar labaad ku celinayaa cabdirasaaq cumar cadaysay oo sidoo kale isna maasooyinkiisii halkii ka ambaqaadi doona haddii aynu gabaygii saytiri haddaan kugu soo celiyo inkasta gabaygaasi dad badan isweydiin doonaan saytiri maxay tahay maadaama af soomaaligu dee noocyo badan yahay oo siyaabo badan loo kala fasiro bal gabaygaas noo yaraa tiri sababtii uu kuugu dhalisay wixii aad ula jeedaysay tiri waa magacaadu weyn haddana waa magacaadu yar bal barnaamijkaas iyadoo barnaamijkii weli bartamaha kaga sii jirno kusii siqayno gabagabadii barnaamijka bal adiga iyo gabayga iyo bulshada ayni kala baxo horta xamday walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay gabayga magaciisa waxaa la yidhaahdaa say tiri ama say tiri qofba siduu u yaqaano gabaygani waxa uu ka hadlayaa horta waxaan kaga hadlay maadaama ay gabayadaydu iskaga badan yihiin iyo heesahayguba iyo sugaanteeda oo dhanba wacyigelin ay iskaga badan tahay waxaan kaga hadlay arrin markii taagnayd oo wacyigelin ahayd oo markaa taagnayd beri dhoweyto aniga waxaa dhacday waxaana iska dhigayaa aniga oo sida gabadh aan jeclaaday oo kale markaan gabadha jeclaado waan u sheeganaya waxaan ku dhahayaa walaal waan ku jecelahay wakaasoo dee arrintaydii nin wax jeclaaday baan iska dhigayaa moogtahay arrintaydii baan soo gudbisanayaa markaan soo gudbisay waxay ugu dhahaysaa war annagu haddanu gabdhaha maanta jooganahay ninku hadduusan qurbaha ka imaan oo lacag uusan wadan ama uu maxaan ku rahday uusan dalkaba joogine uusan bakhaaro waaweyn iyo maxaan ku rahday meelo waaweyn aysan u shidnayn annagu lama hadallo lamana saaxiibno bay ugu dhahaysaa markaasaan la sii hadlayaa waan u sheegayaa moogtahay waxaan u sheegaya waxaan aaminsan tahay baan ka yar saarayaa moogtahay waan u sheegayaa inaysan qurbuhuna wax saa u weynahayn oo layska tegi karo maxaan ku rahday lacagtana la iska heli karo ilaahayba uu bixiyo qofku uu doono uu siiyo markaas halkaasaan uga bilaabayaa xoogaa wax dhaliilaa saa weynayna kuma jiraan dee ragga qurbaha ka imaanayaan xoogaa ku yar dumaya iyaga qudhooda ragga qurbaha ka imaanayana ha iska raalli ahaadeen iyaga qudhooda xaasid mina la cayaareen oo rag fara badan iyaga qudhooda laakiin xaasid mina la cayaareen oo rag fara badan bay wanjaleen moogtahay oo ku yar qabteen moogtahay gabdho badan bay rag ka qaadeen ninkii shaqaysan waaya waa laga hormarinayaa gabadha dee laga hormariyo laakiin iyada qudheedu in dee laysku adkeeyo maaha oo waxa ay gabdhuhu aaminaan marka aduu intaasu ka hadlayaa gabaygu adiga saaxiibkaabay ku dhacday mise adaa lagu wanjalay xaqiiqda markaad ka hadasho may xaqiiqda markaan ka hadlo horta qisada dad badan baa isweydiin doona oo dhihi doonaa
ninkii waa la wanjalay inaa cabdirsaaq ku dhacday ama barnaamij ku dhex jira sheekada maqlay in adeeg kugu dhacday baan aaminsanahay aduu dee kaba soo qaad meen aniga igu dhacdayba laakiin qisadu haddaysan igu dhicin rag fara badan oo saaxiibada iyo mar dambe aan iswaraysanay markaan gabayga tiriye kadib baa sheegi doona dhahaya inuu anaga qisaas kale nagu dhacday ma anaga niga turjuntay laakiin anu markii cidna kama aan turjumin waxaan u arkay micnihi wacyigelin wax markaa taagnaa un bay ahayd oo saasaan u soo jeediyey gabaygana haddii aan bilaabo wuxuu ku bilaabmaya isaguna sida tan marka hore anaa la hadlayo gabadhan waxaan iska dhigayaa oo kale saa hadir sheegayso kale inaan gabadha jecelahay kana iska dhigayaa markaan u sheegto jaceylka yacni anoo gabadhii aan jeclaa la hadlay oo kale ma iska dhigayaa markaas iyaduna igu adkeynaysaa oo igu yar qabanaysaa ma ogtahay kadib laakiin way soo noqon doontaa oo dib bay ka toobad keeni doontaa markaasaan gabayguna wuxuu ku bilaabmayaa haddii aan gabayga idiin bilaabo sida tan buu ku bilaabmayaa bismillaah la socod wanaagsan sifo iyo wanaag iyo akhlaaq amase sameelba sideedaba haweenkama sino sami kala roone aniguna midaan saantay waa suurad gooniya si kastaan qalbiga uga sasabo amaan kasii jeedsho si sariga ku xidhan oo cayaar ugama suulayso saameel wanaagay kolley saaqday ruuxdii sidee baad u gelaysaa jismiga adiga ku sooman say tidhi sabool baa tihiyo sadyaare ardaya aniguna sidaydaba ma ihi sidaadii moodayso hadduusan suuqa ku lahayn dukaan saxu adeegaya ama aanu soo degin markaas lamaba saaxiibo adiguna ka sii daa hadeer saacado halumin saan idhi saxweeyo anigu waan soconayaaye laakiin siyaalaha adduun subaxba wacayne mana aha sidaad mooday oo aad sawiranayso maalkana samiica baxsho siya aadmiga umana kala sokeeyaan nafluhu samiga arsaaqda qurbahaad ku seleelayso adigu salaamayso isna suudalba lagu tegaa socod tahriibeedo mana aha wax sa'weyn inaad sahal ku gaadhaye ragga soo degayana hadeer ma aha sad mooday waa wada safiih iyo midaan saxu shaqaynayne midkoodii saliim ahna si fudud umaba soo dhoofo anigana sidaad sheegtayaad horeba ii siisay sooskii cilmiga baan ahiyo subane ardaya waxna kama sarreeyaan dunida saamiga aqoonta inkastaad isaaqday oo qalbigu isiraadmayo saaxiibtinimo thaman gashaa wasaboolnimo iminkana sureere inkastaad isaaqday oo qalbigu isiraadmayo suruqdiisa caashaqa dhabbaan ugu samrayaaye iminkana sureerey walaal waan soconayaaye ilaahay sidii khayr qabto sax ahaynoo yeelo say tidhi sidaa kama fikirin saadiq baa tahay iminkana samaalo walaal waan ku saanyaday aan wada samayne jacayl sifadiyo ogle sadrigayga baan ku furay sani ugu sheego wixii horena iga saamaxo sinaba haw eegin qalbigaad sasabaysayoo aniga igu saloognaana aniguna sidiisoo kalaan soo dhowow eriye isagana ka saar murugadiyo wuxuu salugayey isagana ka saar murugadiyo wuxuu salugayey inaanu saaniraahno badiba aan ku gurseegno soomaaliba ila qabto seegtay taladii waanuna ka simanahay hablaha soonkan waaxa jooga saanidhi sidaan doonayo saantay baa tidhi iminkana sax weeyaan haddaad soo dhowow tiriye aan wada samayne jacayl
jacayl sifadiyo ogle safiyay xubbiga iga guddoon safi baa tahay gabaygaasina intaasuu kusoo kordhaya calay taxaal marka dambe gabadhi waan saf garanaynaa aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq cumar cadaysay oo loo yaqaano cadaysay halkaa waxaa ka muuqata in jacayl ka dhexdhacay oo gabadhii markii hore kaa tagtay iyadu kugu soo laba kaclaysay sheekadiina ay halkaa ku dhammaatay aad baad u mahadsan tahay sidoo kale waxaan ku celinayaa mar labaad mikrofoonka cabdisamed cabdilaahi jaamac cabdisamed weli barnaamijkeen bartamaha kaga jirnaa jacayladaasa isku dhaafaya ma abwaaniinba ma fanaaniinba dadku ilaa iyo hadda way jahwareersan yihiin wiilashan aadka u quruxda badan ama da'da yar waxay ku nool yihiin ama ay ku sugan yihiin magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool cabdisamed waxaan ku weydiinayaa heesta dembi maanta waxaan odhan karaa waa mucjisooyinkii inamadan hees dembi miyaa hadal dembi miyaa hadal ma karayso bal cabdisamed baa inooga waramayaa heesta heesta dembi horta magaca dembi heesta waxay kula baxdaa heestan waxaan u hibeeyey oo aan siiyey nin saaxiibkaiyo gabadhu jeclaa markaa ninka saaxiibka gabadhu laascaanood uu joogtaa isagoo laascaanood buu joogaa wiilka gabadhu way isjecel yihiin markaa ninka saaxiibkay jacaylka uu gabadha u qabo wuu ku weynyahay naftiisu u huri karaa wax kasta uusan bini aadan samayn karin buu darteed u samayn karaa heer wuxuu gaadhayaa adduunku wuxuu sameeyo daaya u dhaho maalinta aakhiro marka layna xisaabinayo haddii ilaahay iga yeelo waxaan samaynayaa dembigaagaan dhahaya aniga hallaysalo adiguna jannada dembigaagaan dhahayaa aniga isaara adiguna jannadaad gelaysaa haddii ilaahay iga yeelo marka ereyada heestaba ugu horeyso oo afeef baa ka horeysa haddii ilaahay iga yeelo maalinta aakhiro dunuubtii aad gashay anigaa dusheeda saaran lahaa marka qof kasta marka hore ula boodaa oo dembibaad gashay marka heesta magaca dembi saasay ku qaadatay heestan haddaan sidan ku bilaabo waxay odhanaysaa dawoy maanta aakhiraan hadduu daayinii aqbalo dunuubtii aad gashaan dushayda ku rari lahaa dadkoo la xisaabiyaad docdaasaad mari lahayd adoo dembi aan lahayn dushaadu xariir ka tahay waxaa duni soo gashaye dalkaba waxaa hawlka jira haddii lay diro dartaa waxaan ahay ruux daldala iyagoon daalayn xubnuhu naftayduna daacad tahay dunida meeshaad jirtiyo docdaada ayaan jeclahay dushaada haddaanan iman dabuubka warkaaga maqal daqiiqad ma neefsan karo hadduu durayari helo digtoor baa tahay idhaya dabiibaa tahay kaba dawaa tahay aan liqliqo dirmaa tahay aan ku dhigo marka digtoorku idaaweeyey dawada laysiiye dermaa tahay aan seexo dermaa tahay aan ku dhigo dunida meeshaad rabtiyo dookhaagu halkuu ka helo intaan kuu duuliyaan dalxiiskuu geyn lahaa dadkuwa meeluusan degin iyo daruurta xaggeeda sare intaan kuu duuliyaan intaan daarkaaga dhiso dermada kuu dhigi lahaa dareenkan kuu qabana docdeeda haddaan badhigo dunida hore looma arag dadku wuu yaabayaa ducaan kuu hibaynayaa ilaah daayinkay ku dhow allaha dembigaaga dhaaf dunida saba iigu waar dardaaranku wuu ku xigi marka dardaarankii halkaas lagu joojiyey waan loola dardaarmayana insha Allah way soo socdaa halkaas ku jirtaa marka heestu intaasna iga dhan tahay aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdilaahi jaamac oo loo yaqaano ilka case daawadayaal sidaad u jeedaanba barnaamijka waxaa galabta qayb ka ahaa cabdirasaaq cumar cadaysay oo loo yaqaano abwaan cadaysay iyo sidoo kale cabdisamed cabdilaahi jaamac oo loo yaqaano ilka case waxaynu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka galabta waxaa inii daadihinaysay anigoo ah xamdi cabdilaahi xamdi qaran barnaamijka habeyntiisa iyo qurxintiisa waxaa iska lahaa bahda alkhwaad kamaramaanka qaaliga ah qaysyare intaynu barnaamij lamida ku kulmi doono waxaynu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.